Soo dhawaada barnaamijka dhageystayaal. Waxaanu maanta ka warramaynaa masaajidka laga dhisay magaalada Istanbul ee maanta madaxweynaha Turkiga xariga uu ka jaray. Masaajidkan ayaa waxaa laga dhisay goob loo yaqaan Taksim Square oo ah goob faras magaalada Istanbul ee bartamaheeda ku yaala. Masaajidkan oo baaxadda dhulka ku fadhiya uu yahay 2500 oo mitir square ama mitir jibaar. Waxa uu hindisay ama qorshihiisa uu maskaxda geliyay madaxweynahan Turkiga hadda ee Recep Tayyip Erdogan 27 sano ka hor xilli uu maayir ka ahaa magaalada Istanbul. Laakiin caqabado badan oo soo wajahay darteed oo waxa ku xoog badnaa xilligaas siyaasadda dalkana hogaaminayay dadka u janjeera dhinaca cilmaaniyadda ama diinta iyo siyaasadda in la kala saaro oo caqabado waaweyn kala horimay. Laakiin rajadaas ma u dhigin 2017 ayay ahayd markii uu dhagax dhigay masaajidkan. Amarkii Ilaahayna maanta ayuu dhammaaday oo wuxuu ku dhammaaday maalnimadii Jimciga ayaa xariga laga jaray, salaadii ugu horeysayna lagu tukaday. Madaxweyne Erdogan isaga oo salaada ka hor hadal kooban uu ka jeediyay masaajidka hortiisa waxa uu sheegay in masaajidkani hadiyad uu u yahay magaalada Istanbul oo u dabaaldegaysa sanad guuridii 568 ee xilligii Islaamku furtay. Haddaba masaajidkan oo ka kooban qaybo kala duwan oo dhinaca madxaf aasaarta iyo taariikhda Islaamka iyo dhaqamada Islaamka la dhigo iyo kutubta diinta Islaamka la dhigo oo library iyo maktabada leh iyo wuxuu ka kooban yahay oo kale 2 dabaq oo dhulka hoostooda oo parking baabuurta lagu talagalay oo qaadi kara in ka badan 600 oo gaari. Masaajidkan goobta laga dhisay waxa ay aad caan ugu tahay gabdhaha jirkooda ka ganacsada ama street hookeriska loo yaqaano. Xilligaas oo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan hamigiisa wuxuu ahaa in goobta ay goob macnaha khayr loo soo doonto ay noqoto maadaama dalku dal muslim yahay. Arrintan oo dalal badan aan farxad gelinahayn masaajidda la dhisayo ayaa warbaahinta reer galbeedka gaar ahaan wadanka Jarmalka warbaahintiisa waxay ku eedeynayaan inuu wadanka islaameynayo. Laakiin arrinta la yaabka leh waxay tahay wadan islaam 99.9% ah muslimiin in haddana la yiraahdo wadanka uu islaameynaya. Waa dhibaatooyinka gumaystaha maskaxda reer galbeedka ay kaga tageen dalal badan. Runtii islaamkuna uu meel sare u gaarayay. Allah ka abaalmariyay madaxweyne Erdogan ayaa aayado Qur'aan ka akhriyay masaajidka. Sidoo kale waxa meesha iyaguna aan ka maqnayn arday Qur'aanka xifdiday oo 130 dhalinyaro ah ka badan oo teenage ama dhalinyarada dhowr iyo 10 jirada ah. Arrintan waxay tusaysaa mustaqbal ifaya Turkiga inuu u soo socdo. Dad badan waxay isweydiiyaan Erdogan hadduu maanta meesha ka baxo yaa bedeli doona. Laakiin waxaad ka arki kartaan dhalinyaro badan oo jaamacadaha Islaamiga ka soo baxaya oo fikirka iyo afkaarta Islaamku aad u xambaarsan in ay dalka Turkiga ay ka jiraan. Barnaamijkan lamida intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa nabadgelyo.